بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله waxaan rabay inaan waxyar gabdhaha walaalahay uga iftiimiyo sabab oo maaragtay kamid ah asbaabta tinta qubanaysa. Waxaa kamid ah qofka madaxiisa agool leh. Agoolka dadna qasharada u yaqaanaan, dadna waxay u yaqaanaan taxob. Waxaan filayaa waa fahmi kartaan qolofta cadcad oo madaxa uu yeesho waxaan ka wado ama u socdo ujeedadeedu tahay qolofta maxaa keena agoolka maxaa sabab u ah waxaa asbaab badan buu leeyahay. Waxaa dhici karta qofka in madaxiisa uu jafaaf ku dhacay, yani qallayl inuu ku dhacay. Qallaylka maxaa u keenay inuu isticmaalay shaambooyin ama wax any product oo maaragtay keentay maqaarkiisii in uu qallayl noqdo. Qallaylka faraha badan haduu yimaado waxa bilaabanaysa inay meeshii qishra ka samaysanto ama agool uu samaysmo. Maxaa kaloo dhici karta in waxa dhici karta qofka uu maaragtay wax iltihaab inuu jiro kale hadii xaaladu ziyaado ay tahay. Sidoo kale wuxuu ku badan yahay qofka markuu soo maray marxaladda shabaabnimada, dhalinyaranimada ayuu ku badan yahay. Uu kaga badan yahay dadka da'da ah. Wuxuuna aad ugu badan yahay ragga. Dumarku waa leeyihiin balse waxa kaga badan ragga kaga badan. Waxa kaloo sabab weyn ah oo iyaduna dadku ku baraarugsanayn baan filayaa inta badan inay jirto wax suu taqdiya, yani inay jirto nafaqo xumo. Qofka cunadiisa inaanu wax nafaqo lahayn baa laga yaabaa nafaqadii madaxa ay u baahneed. Marka waxaa la rabaa qofka cunadiisa marka hore inay dheelatiran tahay. Markay bahashu heer gaarto waxa qofka yani wuxuu dareemayaa tasaaqud badan madaxiisa inay aad maaragtay tintii u qubanayso. Sidoo kale in taxobtiina ama qoloftii ay soo gaaraysa ilaa dharkiisi garbaha ay ku soo qubanayso. Marka waa mar heer maaragtay ziyaado ay gaartay. Sidoo kale qofkii inuu aad u xoqaayo cuncun oo maaragtay aad iscaaj u ah in ay ku hayso. Insha Allah wax rabaa markaa inaan ku soo gudbiyo halkaan wax kugu caawinayo oo dabiicina ah, aaminna ah. Insha Allah biidhnillah ka caawinaya maaragtay waxa sheegaynay oo ah qoloftii ama taxob qofba si buu yaqaana. Ala kulli waxaan rajeynayaa inay la fahmaysan waxaan ka wado. Waxaan isticmaalaynaa biidhnillah waa liin dhanaan iyo khal tufaax. Tufaaxa khalkiisa ayaa isticmaalaynaa. Liinta طبعا waxay leedahay ximd citric bay leedahay. Acidkaas ayaa ku caawinaya tinta in maaragtay fitriyaadka oo sameynaya maaragtay taxobtii ama agoolkii sameynaya ayuu dilayaa. Marka asaga iyo khal tufaax waxay isku caawinayaan sidii fitriyaadkaas u dili lahaayeen madaxaaguna nadiif u ahaan lahaa isagoona maaragtay zuyuudi Ilaahay ugu talagalay maqaarkaaga ka qallajinaynin oo una jafaaf maqaarkaaga ugu dhicin. Waxaan isticmaalaynaa waa biyo iyo half khal tufaax ah. Inta hadda u jeedaan tufaaxa halfkaas ayaan ka isticmaalaynaa khalka. Waxaan ku dareynaa koob iyo bar oo kale oo biyo ah ayaan ku dareynaa. Markasta biyaha badanaya waxaan rabnaa inaan ku khafiifino khalkii aan isticmaalinay iyo liinta aan isticmaalinay. Waayo waa acidkaas aan rabnaa xogaa inaan iska khafiifino. Inta ayaa isku dareynaa kadib maaragtay waa isku walaaqaynaa si fiican markay isugu milmaan. Ay shay waxa guriga ku yaala isticmaalaysid oo bakhaaq leh spray ah si hadhow ay kugu fududaato inaad madaxaaga maaragtay ku shubto ayaa ku shubanaysaa. Inta laga daan iska gashanaysaa. Waxaan markaa tintii dhaqdo oo dhameyso ayaad ku buufinaysaa. Waxa ku buufinaysidna tinta kaliya ma ahe waa salka maqaarka aan rabnaa in lagu buufiyo. Maqaarka ayaa ku buufinaysaa. Waxa ku joogaysaa saacad oo kale ama 2 saac kadib waa iska biiraacinaysaa. Waxaan walaalay xusuusinayaa qofkii madaxiisa u dhaawac yahay oo aad u xoqay waxaan rajeynayaa in uu sugo xoogaa intuuna isticmaalan liintii khalka intuu madaxa ka bogsanayo. Laakiin qofkii madaxiisa aan dhaawac ahayn oo caadiya uu isticmaali karaa insha Allah. Khayr ayaa idin rajeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan soo xusuusinayaa si markasta fiidiyoyaasha inay idin soo gaaraan inaad subscribe dhahdaan channelka si uu kugu soo baxo wax kastoo la soo geliyo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.